السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiina muuqaalkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay qaabkii aad iskugu diiwaangelin lahayd bluefix. Muuqaalkani muuqaal caawa wuxuu noqon doonaa aan kugu tusi doono qaabkaad iskaga diiwaangelin lahayd bluefix adigoo helaya 10% oo discount ah dhammaan akoomankooda. Muuqaalkan waxaan rajeynayaa maaha muuqaalkii ugu horreeyay aan soo sameeyay. Haddii aad ku xiran tahay videogani ama youtube-keeni bluefix Soomaaliya qaybta Soomaaliya, horey waxaan u sameeyay muuqaal aan kaga hadlayo qaabkii aad iskaga diiwaangelin lahayd, laakiin muuqaalkani wuxuu ahaayay muddo 8 bilood ka hor ah. 8 bilood ka hor ama 8 bilood waxyaabo badan ayaa shirkadda iska bedelay, oo waxaa iska bedelay xagga website-ka ayaa gebi ahaanba isbedel ku imaaday. Sidoo kale dashboard-kii shirkadda ayaa gebi ahaanba isbedel ku imaaday. Waxyaabo badan oo isbedel ayaa dhacay, product-yaal badan oo shirkadda ayay soo saartay. Marka waxaan ku qasbanaaday inaan muuqaal kale cusub kasoo sameeyo si dhalinyarada badanaa hadda ka cabanaysa ee la soo xiriirtay ay ayagana u fududaato qaabka la isku diiwaangelin lahaa. Muuqaalkani waxyaabaha kale xiiso leeyahay waxaa ka mid ah inaan shirkadda wada hadalna dhex maray oo aan wada hadalnay oo aad cabashadii iisoo gudbiseen aan sii gudbiyo oo ah in maadaama sanadka cusub ama sanadkan 2020 bilowday ay dhalinyaro badan qorsheynayaan in baleenkoodii 2022 oo kamid tahay inay shirkadda kusoo biiraan, laakiin ay rabaan in discount ay helaan. Ayadana fursad fiican waaye oo shirkaddii wada hadalkii iyo wixii aan dhex maray discount way noo sameysay. Discount-kani hadda waa 10% dhammaan akoomanka shirkadda ay leedahay, midka monthly subscription-ka iyo midka one time-ka waxaad heli doontaa 10% oo discount ah. Waa dadka cusub oo keliya. Discount-kani wuxuu socon doonaa keliya bishan January aan ku jirno. Discount-kani ayagana waxay u soo bandhigeen codsigeeni kadib maadaama ayagana ay 10 sano u dabaaldegayaan oo ay 10 sano jirsatay shirkaddani muddada ay aasaasan tahayna ay hadda tahay 10 sano. Sidoo kale ayadana waxay offer gareysay ama dadka usoo bandhigtay in 10% subscription-kan oo subscription-kii ay dadka qiimo dhimis u sameeyeen. Linkiga description-ka ayuu yaalaa, linkiga isku dhufo, linkaas iska diiwaangeli. Wax allaala wixii caawinaad aad u baahnaatana Telegram-ka qaybta Soomaalida ee bluefix kusoo biir. Halkaasi ayaad wixii caawinaad aad ugu baahnaato keliya aad iga heli doontaa. Videogani muuqaalkeeni haddii aan dib ugu soo laabano, muuqaalka waxaan uga hadli doonaa qaabka ugu fudud aad isku diiwaangelin lahayd. Inta aanan qaabkaas ka hadlin waxaan rabaa waxyaabo yar inaan idinka taabto oo ah qaladaadka badanaa dhalinyarada ay sameynayeen ama qaladaadkii ugu badan ee dhalinyarada sameeyeen. Qaladaadka saaxiibayaal ugu badan aad sameysaan waxaa ka mid ah 3 waxyaabood. Inta aan hadda shirkadda la shaqeynayo 3 qalad ayaa ugu badan ee Soomaalida sameeyaan. 3daas qaladna waxay sababtay in ganaaxni la qaado iyo in qaladaadkii ay sii bataan maadaama dad badan hadda qaladaadkii ay sameeyeen aniga si Soomaali ahaan shirkadda la hadlay xaliyay, laakiin hadda kadib ayuu sheegayaa inaysan soconaynin wax kale si Soomaalinimo ama si Soomaalinimo loo xalin doono. Qaladaadka ugu badan waxaa ka mid ah dhalinyarada badanaa waxay sameeyaan akoonka 25k ayay qaataan. Akoonka 25k sidaan wada ognahay wuxuu leeyahay waqtigii loogu talagalay oo ah inaad trade gareyso oo ah subaxdii markii Soomaaliya ay ka tahay 9kii ilaa 12kii habeenimo ayaa loogu talagalay in dadka ku trade gareeyaan. Marka waxaa arkay dad sharcigani burinayo oo 12kii wixii ka dambeeyay trade galayo, weliba hal ma aha oo qaladaad badan ama sharci darro trade qaadanayo. Kadib targetka markuu gaarana withdrawal-kii la ganaaxo dhahayo dhibaatadaas ay dhacday si Soomaalinimo ku xali. Inta xalin kale horta waa soo xaliyay, laakiin hadda kadib waxaas way soo dhamaadeen oo company walba sharci iyo qaanuun uu leeyahay. Ma jirto wax Soomaalinimo iyo wax walaaltinimo hadda kadib loo xalin doono. Haddii aad qaladkaasi buriso waxay kugu sababi doontaa in akoonkaagii lagaa xiro ama in ganaax lagu dul saaro. Marka qaladka koowaad waxay tahay iska ilaaliya in akoonkaagii trading hours-ka aad buriso. Iska ilaali in sharciga shirkadda aad buriso. Dad badan waa ku arka dhahayaan ma ogeenin ma akhrisan terms-ka wada hadal. Hadda kadib wax wada hadal ma jiro, shirkaddu xaggooda way kasoo dhamaatay. Haddii aad sharciga buriso sida ayaga u qoondeysan ayaad maraysaa, ma jirto wax si Soomaalinimo aan u xali doono. Qodobka labaad waxa waaye dadka badanaa waxay sameynayaan hedges. Hedges-ka macnaha waxa waaye inaad trade euro USD aad gasho, sell iyo buy-na aad u gasho.
so ayadana waxay kamid tahay waxyaabaha sababa in akoonkaaga lagaa xiro. So khaladkaasina ayadana khaladaad badan arka Soomaali sameynayso bal iska ilaaliya ayadana dadka inaadan sameynin. Khaladka saddexaad dadka sameeyaan waxaa waaye weekendiga inaad trade hayso. Sida caadiga weekendiga lama ogola qofka inuu trade hayo, laakiin waxaan arkaa dad badan oo weekendiga trade hayo, laakiin akoonkii markii laga xiro kula soo xiriirayo ku dhahayo si Soomaalinimo u xalli. Wixii si Soomaalinimo loo xallin jiray hadda kadib way soo dhamaadeen. Hadda kadib waxay noqonaysaa sharciga iyo shirkadda. Aniga meesha waa ka baxay maadaama xaliskaygii iyo wixii oo farbatay. So saddexdaas qodob waa saddexda qodob aad idin soo jeedin lahaa inaad iska taxadirtaan oo iska ilaalisaan. Waa qaladaadka ugu badan idin sababa in ganaax akoonkiini lagu sameeyo in akoonka lagaa xiro. So dhanka kale haddii aan video muuqaalkeena usoo laabano, so sidaan hore idinku sheegay waxaad heli doontaan 10% oo subscription-kaaga discount lagu sameyn doono. Waa haddii linkiga iska diiwaangelisay, linkiga description-ka uu yaalaa. wax allaale wixii caawinaad u baahnaatana telegramka qaybta Soomaalida kusoo biir. adminka Bashka Cumar ayaa ku qoran, si private igu soo xiriiri kartaa. So shirkadani waxyaabaha aan aniga ahaan kasoo dhameeyay waxaa kamid ah xagga registration-ka marka la joogo inaad registration-kaagi aad u isticmaali karto warqadaha gobolka Banaadir uu bixiyo. Macnaha waxaa ka wadaa proof address-kaagi, proof residency-ga ama waxa loo yaqaano proof documents-ka ama identity documents-ka inaad isticmaali karto passport-kaaga Soomaaliga, national ID card-kaaga, driver license-ga, warqadda gobolka Banaadir uu bixiyo, Somaliland passport-kooda waad isticmaali kartaa, national ID-gooda waad isticmaali kartaa, driver license-ga waad isticmaali kartaa, sidoo kale Puntland waad isticmaali kartaa. Dhammaan documents-kaas waad isticmaali kartaa. Haddii aad u baahnaato inaan kaa caawiyana telegramka isku soo biir, aniga igala soo hadal, aniga kaa caawin doono oo shirkadda iyo idinka iskugu xiri doono insha Allah, verify-na kuu sii doono. Sidoo kale waxyaabaha lagaaga baahan yahay ayadana waxaa kamid ah inaad haysato warqad caddeynayso address-kaaga. warqadda address-kaaga caddeynayso waxaa noqon kartaa bank statement-iga, laakiin bank statement-iga waxaa lagaa rabaa mar walbo in magacaaga iyo address-ka aad degan tahay uu ku qornaado looga ayna leedahay istaambada shirkadda ama bangigana ay leedahay. Tan kale waxaad isticmaali kartaa Swift code ama warqadaha hadda bangiga ay bixiyaan oo to whom it may concern la dhahayo, ayadana waa isticmaali kartaa. Haddii Europe iyo meelahan aad joogto weli kaagama sheekeynayo proof address gurigaaga uu leeyahay, waad isticmaali kartaa. Midda electricity-ga oo guriga lacagta korontada ku bixisa isticmaali kartaa, midda ijaarka ku isticmaali kartaa, ama warqadda guriga caddeynayso inaad adiga ownerkeeda ama ownership aad leedahay falaadkaaga ama guriga waa isticmaali kartaa. So intaasi waa documents-ka lagaa rabay. So waxaan filaa wax documents ee problem kaaga imaanayo, waayo waa arka dad badan oo ka cabi jireen oo dhihi jireen documents-ka dhibaato iyo waxaa ka jirta. Waa kuu fududeeyey haddii gobolkii aan kasoo dhameeyay Banaadir inaad documents-kaaga ku isticmaali karto. Haddii aan kasoo dhameeyay documents-ka Somaliland dhan inaad isticmaali karto. Haddii aan kasoo dhameeyay documents-ka Puntland dhan inaad isticmaali karto. Ma filayo wax problem oo xagga verification-ka iyo documents-ka inaad kala kulmayso. Haddii aad kala kulmayso aniga ila soo xiriir, telegramka qaybta hoosan kusoo dhigay kusoo biir, linkigana iska diiwaangeli, si toos igu soo xiriir, anaa kaa caawin doona insha Allah. So muuqaalkeeni haddaan dib ugu soo laabano halaas wixii iday information-ka common ama information-ka guud aad u baahan tahay si aad shirkaddan iskaga diiwaangeliso. So haddii aad rabto faahfaahin dheeri aad u baahan tahay shirkadda inaad ka ogaatane videoni ama YouTube-keeni dib ugu laabo, halkaas aad ka helaysaa video badan aan ka hadlayo qaabka barnaamijkan waxaan u shaqeeyo. So marka waxaan sameyn doonaa qaabka la isku diiwaangelin lahay. Registration-ka waxaad sameynaysaa linkiga description-ka kusoo dhufo, linkaas iska diiwaangeli si 10% discount-ka aad u hesho. Xitaa haddii February meelahaas ay sii gaarto waa isku dayi doonaa inaan shirkadda la hadlo oo aniga ahaan aan ka dhameeyo ilaa February inuu discount-kaas noo sii socdo. So waxaad sameysaa meeshan login and sign up ku dhufan tahay ay ku qoran tahay ku dhufo. Login and sign up markaad click siiso si toos ah wuxuu iskugu geyn doonaa dashboard cusub ama qaybta isdiiwaangelinta aad iska diiwaangelinayso. So marka waxaa kusoo bixi doona qaybtan ay ku qoran tahay login and register. qaybtan login ay ku qoran tahay waa qaybtii aad login ku sameynayso markaad isdiiwaangelisay gudaha aad ugu galisay. So qaybtan register ay ku qoran tahay ayadana waa qaybta hadda aad iska diiwaangelinayso, aad diiwaangelin cusub ku bilaabayso. So marka aniga waxaan rabaa inaan isdiiwaangelinta ku tusiyo, waxaan sameyn doonaa isdiiwaangelinta qaybtan register-ka ayaan ku dhufanayaa. So qaybtan register-ka markaan ku dhufto isla markii waxaa ii soo baxayo form-kan ayaa ii soo baxayo oo meeshan waxaa ku qoran first name magacaaga geli, last name-ka geli, email-kaaga iyo password-ka samee. Marka waxaan isku dayaa xogtan inaan buuxiyo kadib aan sign in dhaho aan isku soo laabano. Sida ujeedid sign up-ka ayaa ku dhufanay hadda. Sign up markaan ku dhufanay si toos ah wuxuu soo galay qaybtii weyneyd ee dashboard-kii ayuu si toos iskugu keenay. So
so qaybtan dashboardka markuu imaaday waxaan sameyn doonaa hadda akoonkii aan rabno ayaan inta ka dooranaynaa. So inta waxaa ujeednaa waxaa ku qoran registration. inta waxaa ku qoran registration oo ah qaybtii koowaad registrationka. inta waxaa ku qoran qaybta labaad oo B-ga ah oo lacagta inaad bixiso. inta waxaa ku qoran qaybta saddexaad oo verificationka ah. intana waa qaybtii ugu dambeysay. marka qaybtan registrationka ayaan hadda rabnaa. tusaale ahaan afartan nooc akoon ayaa inta taalo. leadkani waa mid swap leh, Pro-gana waa 50k oo swap leh, Islamic waa 25k oo Islamic ah oo swap aan lahayn, iyo 50k. so midka allaala midka aragtid ayaad dooranaysaa. tusaale ahaan ani hadda waxaan leeyahay waxaan rabaa 25k-ga ayaan rabaa leeyahay oo midka Islamic ah. 25k-ga click sii subscribe aan leeyahay. kadib wuu is raadinayaa, wuxuu ii soo saari doonaa ama waxaan tagi doonaa qaybtii labaad ee ku qorayd Pay. sida ujeedid registrationkii waa soo dhameynay. hadda waxaan imaanay qaybtii labaad ee ku qoran Pay-ga oo ah qaybtii lacagta aad ku bixin leeday. sida ujeedid meeshaan lacag bixinta waxaa taalo kaarkaaga ayaa ku bixi kartaa, PayPal ayaa lacagta ku bixi kartaa, Perfect Money ayaad ku bixi kartaa, so bank transfer waa ku bixi kartaa, USDT ayaa ku bixi kartaa, Bitcoin ayaad ku bixi kartaa, Web Money ayaa ku bixi kartaa. so tusaale marka waxaan leeyahay aniga akoon hore iiga furan waxaan leeyahay tusaale ahaan waxaa kusoo bixiyaa leeyahay USDT ayaan waxaan leeyahay ayaa kusoo bixiyey. marka waxaan leeyahay tusaale ahaan inta ayaan dooranayaa. inta saa ujeedid addresskii waxaa kuu yaalo oo USDT-da mida ERC-da iyo TRC-da buu ku taalaa. so inta saa ujeedid waxaa kuu yaala ayadana yuuradii iyo waxaa kuu taala dollarkii iyo yuuradii. sidoo kale haddii aad rabto inaad qaab email ahaan ku bixiso Perfect Money intaad ku xiraysaa. marka inta waxaad gelinaysaa markii aad lacagta soo bixiso. tusaale ahaan haddii lacagta aad ku bixiso qaab USDT ah, haddii aad ku bixiso meeshan upload ay ku qoran tahay click siinay, warqadii aad lacagta ku bixisay ayaad soo gelinaysaa gudaha gelinay. hadda tusaale ahaan inta waxaa ku qoran upload payment proof. so upload haddii kaarka aad ku bixisana si automatic ah qaybtani Pay-ga wuu ka tagaa oo qaybtan verificationka ayaad imaanaysaa. ama waxaad sameyn kartaa dhib malaha mar allaala markii aad qaybtan Pay-ga bixiso oo aad lacagtaad bixiso. tusaale waxaa ku tusinaa kaarka markaad bixiso si automatic qaybtani Pay-ga way ka tagaysaa oo qaybtan verificationka ayay imaanaysaa. qaybtan verificationka markay timaado waxaad sameyn kartaa baasaboorkaagii iyo documentiskaagii ayaad gelinaysaa si automatic ah. markii aad submit dhahdana kadib wuxuu u gudbayaa qaybtan afraad. qaybtan afraad wax shaqo ee lagama rabo, akoonkaagii ayaa laguu soo diraa. afartoodiiba waxaa saarmayso calaamadan buluugta ah. hadda tusaale ahaan markaa lacagta bixiyo kadib qaybtan verificationka aan u gudbayaa. qaybta verificationka markii aan baasaboorka iyo documentiskayga geliyaan si automatic ayuu iigu sii gudbinayaa oo wuxuu i geenayaa qaybtii afraad. qaybtii afraadna wax shaqo ah ma qabanaysid oo akoonkaagii ayaad sugaysaa. akoonkeena 24 saac gudahooda ayaad ku helaysaa. so qaybtaas waa sidaasi. dadka qaar marka waxaa laga yaabaa inay u baahnaadaan in verificationka ay ku dhib qabaan maadaama paymentiga marka la bixiyo kadib iyo verificationka paymentiga marka la bixiyo kadib oo verificationka iyo waxaas uu kaaga baahan yahay. so marka hadda waxaan sameynaynaa qaybkan paymentiga ah maadaama hadda qaybta paymentiga aanay ka gudbaynin. haddii verificationka aad u baahan tahay in verificationkaagii aad mar hore hesho waxaad sameyn kartaa qaybtan ay ku qoran tahay support ay ku qoran tahay emailkaasi ayaad waxaad u diraysaa documentiskaagii waxaan ku leedahay approve gareeya. ama midda labaad aad sameyn kartaa waxay tahay waxaad imaanaysaa qaybtan profile-ka ay ku qoran tahay oo waxaad fiirinaysaa meeshani profile-ka ay ku qoran tahay. tusaale ahaan waxaan leeyahay hadda profile-keygii ayaan fiirinayaa oo waxaan leeyahay profile-keygii. so profile-keygii ayaan fiirinayaa oo waxaan leeyahay sorry call ayaa soo galaya. so marka waxaad sameynaysaa qaybta ay ku qoran tahay profile-ka ayaad ku dhufanaysaa. qaybta profile-ka markaad ku dhufato kadib documentiskaagii ayaad inta ka xareyn kartaa. tusaale ahaan inta saa ujeedid waa kana qaybtii profile-keygii markii aan kusoo dhuftay. magacayga first name-ka waa kana, contactiga waa kana, mobile-keygii ayaa inta gelinayaa, street address-keyga ayaa inta gelinayaa, address-ka ayaan dhamaystirayaa, caasimada aan joogo, wadanka, xilliga aan dhashay, waxaasoo dhan information-keeda ayaan gelinayaa. kadib save ayaan leeyahay oo waa save gareynaa. kadib markaan save gareeyo qaybtan hoose ayaan usoo degayaa oo ah qaybta oo documentiska laga upload gareynayo. marka qaybtan waxaad gelinaysaa identification-kaagii baasaboorka iyo xogtii aan kusoo sheegay
intana waxaad gelinaysaa addresskaagii kadibna waxaa leedahay upload waad upload garaynaysaa. So markaad upload garayso tiimka ayagaa kula soo xiriiraya ku dhihi doono akoonkaagii waa verify garaynay. Markii akoonkaaga lagu verify gareeyo haddii aad u baahan tahay markaasi lacagta waa bixi kartaa. Lacagta adigoo verify heshana waa bixi kartaa, adigoo aanan verify helinna waa bixi kartaa. So waa kuu sheegay haddii verify aad rabto emailkaas u dir, emailka markaad u dirto ayaga kusoo jawaabayo ama qaybta hadan kuu sheegayo oo profilkan booqo kadib xogta meesha ka buuxi kadib qaybtan imaaw lacagta bixi verificationka already markaas waad samaysay oo qaybtani oo ay ku qoran tahay account profilkii ayaad ka gelisay mar labaad ku celi complete qaybtan afraad ayuu kuu gudbi doonaa qaybta afraadna akoonkaagii ayaa lagu soo diri doonaa. Marka waxaan filaa qaybtan verificationka iyo qaabka isdiiwaangelinta inaad fahanteen oo aan idin sharxay. So muuqaalkeena intaan ku gabagabeyneynaa haddii markii kugu horeysay ay tahay fadlan channelka subscribe noo saar telegramkeenii iyo kulli iyo xogta idil haddii aad shirkadda ugu baahan tahay telegramka linkiga description-ka ayuu yaalaa sidoo kale ha hilmaamin linkigii private-kana inaad iska diiwaangeliso si aad iiga hesho caawinaad buuxda oo xagga shirkadda ah ha ahaato xagga information-ada iyo xagga withdrawal haddii linkiga aad iska diiwaangeliso waxyaabaha ka faa'iidayso waxaa kamid ah in hadhow markaa targetka aad gaarto si toos ah lacagahaaga local transfer aad ku heli karto xawaalad ama Premier Bank ama EVC ama Zaad dhammaan adeegyada waddanka ka shaqeeya. So muuqaalkeena intii aan kusoo gabagabeyneynaa intaan muuqaalka ku kulmayno waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala